madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydiq iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa kormeeray mashaariic kala duwan oo ka socda magaalada Burco kuwaas oo qayb ka yihiin mashaariicda waxqabad ee GPLG-ga Soomaaliland. mashaariicdani uu kormeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee isugu jira wadooyin, bridge-ka Ceelgooni, sariibado iyo sidoo kale hoolka shirarka ee dawladda hoose ee magaalada Burco. kormeerkaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka way weheliyeen xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ayaa kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco, maamulka golaha deegaanka ee magaalada Burco iyo isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer. ugu horeyn waxa kulankaasi ka hadlay xubno kamid ah isuduwayaasha wasaaradaha dawladda ee gobolka Togdheer. shaqeeya ee dhiseen jibti wax kamid ah kalbar uu noo shaqeeyaan nasiyo uu shaqeeyaa riixiro way shaqeysaa dhuqashii wax ku daray extension ku sameeyeen qaybta umuraha iyo maternity-ga lagu umuro way dhiseen waxa imika gacanta lagu hayaa baashi goroyo xunta sare xadka 9 qof oo shaqaale hoosaadood waashmaaniya keenana lacagta way siiyaan. geesta kale waxa iyaguna hadal ka qaatay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco oo maayir ku-xigeenka degmada Burco kuwaas oo iyaguna dhankooda ka warbixiyay mashaariicdani waxqabad aan iskuulo dugsiyo sare ah wasiirka aad baan u dhageysanay dugsiyo sare oo aan dawladaha hoose sharciyan aan xaq loogu lahayn ama GLPG-ga aan ku jirin inaan anagu basas u iibinay oo 4 bas u iibinay oo aan shidaalka joogto ugu shubno oo Yurowe iyo Aadan Salebaan iyo Cali Xuseen iyo Koosaar 4 secondary-ba aan sameynay basaska u iibinay iyo maamul daadejintii iyo decentralization-kii maanta halku marayo haday aqoon tahay iyo hadii ay maxay ahaydey wax qabad tahay iyo haday isku xidhnaan tahay inta maanta waxaan oran karnaa wax lagu faani karaa maanta uu maraya ilaa xilligii la bilaabay ilaa maanta haday xagga wax qabadka tahay madaxweyne waxyaabo fara badan buu naga caawiyay maadaama aanan dhaqaaluhu yaraa oo aqoontu yarayd waxyaabaanu ka faa'iidnay waxa ka badnaa in wax la qabto in maskaxda iyo shaqaalaha iyo maxay ahaydey tababaradan uu naloo fidiyay ayaa ahayd iyaduna wax weyn oo waxyaabaha noo sahlay inaan maxay ahaydey shaqaalaha iyagu noo sahlaan inaan anagu wax qabsan karno oo noo fududeeyay. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo kulankani ka hadlay ayaa ku booriyay dawladda hoose ee magaalada Burco in ay kor u qaadaan hawlaha shaqo iyo waxqabadka bulshada. hawshaas waxa weeyaan kow ma joogno maamul daadejin iyo hawsha loo socdo iyo maamul wanaag loo socday waa hawl adag been waqti inooga baahan tahay dulqaad iyo adkaysi iyo daacadnimo fara badan inooga baahan tahay. mashruucan wuxuu ina barayay dawlad wanaag wiina baraya iyo in adeegyadii bulshada dastuurkeenu na farayay in loo dhaweeyo bulshada loo dhaadhiciyo in la nagu tababaro waana midab waana arrin madaxeed waxayna degmada ka mid tahay 3 degmo hore lagu tijaabinayay maamul daadejinta oo ah 3 degmo Burco iyo Berberiya Boorama labadii shay ugu muhiimsanaa ee asaasiga ahna in lagu bilaabo tijaabadaas ay noqoto waxbarashadii iyo caafimaadkii dhaxsan loo diyaar garoobay marta waxaas arrin socota oo adeegyadii asaasiga ummadda loo qabanayay in kuwa soo socda oo soo dhacay yihiin dawladda dhexe oo diyaar garoobaysa golayaashii deegaanka iyo marta shaqaalihii dawladda hoose waa inuu diyaar garoobaan inay hawshaas si wanaagsan lahaayeen ee u fulayeen. kormeerka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee mashaariicdani waxqabad ayaa ku soo beegmaya xilli aanay badi furin mashaariicdani waxqabad ee uu kormeeray madaxweyne ku-xigeenku taasi oo ay baahi weyn u qabto bulshada reer Burco. waa Fahmi Kaysa Xarsi, Bulsha TV, magaalada Burco.